dhammaan asxaabta meel walba joogtaan asxaabta Somali Innovation Club oo idin soo dhaweynayna dhammaantiin meel walba joogtaan waxaan rabaa muuqaalkan maanta inaan idinkula wadaago xog aad muhiim ah maadaama aan xog saarayno dhanka waxbarashada iyo dhanka aqoonta dhan walba ha noqoto suuq walba ha noqoto ama sector walba ha noqoto inaan xog saarno waxaan li weydiiyay website badan oo dhanka education ka ah marka intaan u howlgelin website-yada waxaan rabaa inaan idinkula wadaago book aan akhrinay isbuucii hadartaan saad ula socotaan Clubhouse-ka maalweed markaa ku jirnay waxaan go'aansanay inaan book akhris bilaawno waxaan soo post gareeyay ilaa iyo 10 book waxa ka doorateen hal bookgaas oo ah dhahdeen 10x bookga 10x inaan ku bilaawno bookgaas waxaan akhrinay isniinta ayaa bilawnay isniinta waxa la akhriyay gilinka hore waaga markuu bariyo qof walba dunida meel walba ka joogo 58 book habeenkii markoo saxanayna ka horna in content iyo waxaan aqrinay 8 book logo sidaas ayaa ku go'aansanay Soomaalkii waxaan go'aansanay inaan aqrino 116 book maanta ayaa soo gabagabeynay aan waqti xaadirkan ayaan dhameeyay Biruto 4 Clubhouse ayaan u qaban doonaa waana ka discuss gareyn doonaa bookgani waxaan ka codsanayaa book xigo inaad doorataan insha Allah buugtan waxa soo gelin doonaa Somali Innovation groupka soo marka waxaan ka codsanayaa in groupka Facebook ku soo birtaan waad isla wadaagtaan wixii information asxaabtana la wadaagtaan dhamaantiina soo maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo website-yada wax laga barto aad u fara badan yihiin dad badan baa nala soo hadlay muuqaalo badan waa ka sameyn doonaa maantana muuqaal kamid ayaan sameyn doonaa insha Allah sida la iskaga diiwaan geliyo hadii qaarkood waa free qaarkood lacag ma ahan qaarkoodna lacag baa la isweydiinaya soo hadii lacagta kugu adkaato nala soo xiriir hadana Somali Innovation waa ka caawinayna insha Allah qaarkood lacag fara badan waay qofkii course gaarayso 1000 iyo something ama $2,000 aan u iibinayno waxaan rabnaa qof aan interview la yeelanay oo si one to one la hadalna maxaan rabnaa qofka investment aan ku sameynayna anaga maanta waa ku maal gelinayna si hadhow at least ummadda Soomaaliyeed aad u anfacdo insha Allah waxaa kamid ah website-kani hadda aad u jeedaan coding-ka qofkii rabo inuu barto muuqaalna waa ka sameyn doonaa website-kani hala tago hala fiiriyo hadda isleedihiin wuuna qanciyay waxaan ka baran karnaa hadday noqoto software-ka hadday noqoto IT-da whatever ay tahay please hala fiiriyo muuqaalna waa ka sameynayna hadday idin qanciyo website-ka labaad oo dhamaantiin aan wada naqaano waa Khan Academy so basically it's kind of like qofka ilaa dugsiga sare ilaa college-ka markuu bilaaw yahay laakiin waa ka heli kartaa hadda u baahan tahay xoogo business classes iyo waxyaabo oo markaasi a little bit more professional ah soo markii qofkii xiiseenayo inuu iska diiwaan geliyo asagana muuqaal ayaa ka sameyn doonaa laakiin hadda muuqaalka ugu hore waxaan ka bilaabi doonaa sida la iskaga diiwaan geliyo website-yada hadda soo socdo LinkedIn sidoo kale wuxuu leeyahay qayb education oo courses ay bixiyaan waa iska diiwaan gelin kartaa courseska waxay review halkaan aad ka arkaysaa almost coursean oo kale waxa iska diiwaan geliyay waxaad review ku sameeyay almost numberkaas u jeedaan soo marka hala fiiriyo hadii ay idinku adag tahay sida loo fiiriyay muuqaal ayaan ka soo sameyn doonaa iskaga diiwaan geliyo waxay ku leeyihiin free trial isku day hadii aadan lacagta awoodin bishii tusaale kale ka soo qaad $29 amaad hadaadan awoodin annaga ku aan leenahay ayaa jiro waa idin la wadaagayna insha Allah laakiin courses free ay jiraan ee bixiyaan asagana waa ka faa'iideysan kartaa Linda sidoo kale same kind of like LinkedIn balse and qofkii u baahan design ko kale web development ko kale business ko kale waad helaysaa inta course ka hayaan waad arkaysaa iyadana waa iska diiwaan gelin kartaa for free midda ku xigta waxay tahay Udacity asagana sidoo kale waad tijaabin kartaan qofkii u baahan annagana waa idinka saacideena insha Allah dhamaantiina ani hadina ku sii dheeraado ma rabo Coursera sidoo kale Coursera ani wax badan ayaa ka bartay saddexda ani hadda labada website aan zaidka wax ugu barto kale waxa kamid ah Skillshare oo hadda aan soo qaadanin Udemy iyo Coursera waa saddexda aan dhihi karo top 3-gayga waaye oo courses badan aan ka qaato soo marka Facebook-na sidoo kale courses oo bixi muuqaalkii la soo dhaafay ayaan uga hadlay iyo Google laakiin kuwa lacagta aan ka hadlayaa kuwa free-ga maahan soo marka Coursera ayada waa free kaliya markaa shahaado u baahan tahay courses ka diiwaan gelin kartaa laakiin maanta waxaan rabaa
Udemy inaan iska diiwaangeliyo aad aragtaan sida la iskaga diiwaangeliyo is easy way badankood waa free qaarkoodna waa lacag soo marka waxaa sameynaysaa just sign up aa leedahay magacaada ayaa gelinaysaa magaceena waxaa waaye Somali Innovation magaceena waaye kaas ayaan gelinaynaa insha Allah emailkeena sidoo kale Somali Innovation Club kaas ayaan isticmaali doonaa insha Allah Gmail kaas ayaan isticmaali doonaa insha Allah hadduu Ilaahay raali ka noqdo Somali Innovation Club password oo sameynana marka password labada yaqaan ayuu noqon doonaa insha Allah waan idin tusin doonaa qofkii u baahan waan siinayna because of waxaan rabnaa inaan course iibino oo qofkii u baahan aan siino koorsadaasi soo iskaga diiwaan geliyo soo marka passwordki waa sameynay just sign up ala leena waa easy wax fudud waaye in badan aan yani since ilaa dugsiga sare ilaa hadirtaan ayaa Udemy courses ka qaadanayay so waxyaabo basic ay ku weydiinayaan you don't have to ina ka jawaabtid just skip aa leedahay qaybtani hoose then hadda waa soo dhaxgashay marka waxaan ahay Somali Innovation waa kana profile-keena profile-ku waa sameysan kartaa hadda website leedahay Twitter Facebook it's kind of like personal laakiin lagama jawaabo soo marka hadda waxaan rabaa wax yar inaan idin tusiyo anigoo kale hadda waxaan jeclaa real estate ko kale in badan dad badan way yaqaanaan real estate iyo e-commerce ayaan zaid u jeclaa soo marka hadda real estate ko kale aan ku dhufanayaa real estate ka markaa ku dhufto بليز أصحابته عندك عشان أصحابتك اللي نالسي وداكتان وكل إن شاء الله real estate كل هذا وحدها كل real estate investing وكل real estate investing وكل عندها in investment أو كسمة real estate كان investment so وحن سمينا يا courses كيسو بحن سوقيا courses أنا كل هذا يسو بحذي fundamental analysis كا أو real estate كا أساس كا وكوي $2 كل وحد لقي يابا kasoo qaad $1 ma awood ani lacagtaas ma haysti ma awood marka waxa sameeynaya qaybta waxaan tagayaa prices ka qaybta waxaan tagayaa free ga almost waxay hayaan 670 course free qaybta free ga ayaan ku dhufanayaa qaybta free ga marka ku dhufto waxyaabaha secret ka meeshan ku jiro kale waxa kamid ah tusaale kale understanding real estate investment trust RETS ko kale course ga waxaan ku fiirinayaa shuruuda inta xidig ay haysato kala af Soomaaliga hadaan ku dhaho inta qofood arday qaadatay daqiiqada ay tahay inta lecture ku jirto iyo levelka tahay soo marka levelku waa beginner waa bilow as 12 lecture ba ku jiro total kan waa 32 daqiiqo soo marka daaminis 32 daqiiqo kadib saacad gudaheeda ayaa waxaan ku baran karaa koorsadaani soo dunida ina wax baratid maanta adiga ayaa iska hortaagan qof kale oo ka hortaagan ma jirto waxaan ayaa ka faa'iideysan kartaa any course ayaa qaadan kartaa hadda coursedan oo kale 47 qofood ayaa qaateen waana 30 daqiiqo 25 lecture ayaa ku jirto multi family waa guryaha badan A to Z waa marka dadkii jecel oo kale so waxaan ayaa ka faa'iideysan kartaa dhamaantiin hadda selecting sustainable financial products real estate maahan kan oo kale hadda commercial real estate ko kale waxa qaadatay fiir commercial real estate waa free waxa qaadatay 807 arday waa 8 saacadood oo soconaysa waa hal maalin oo kale iska soo qaad ama isbuuca ku baran kartaa hada lazy tahay waxa ku jiro 76 lecture waa bilow soo marka waxaan ayaa rabaa inaad ka faa'iideysataan waa free education way hadii ku lacagta u baahatid fadlan anaga nala soo xiriir waad u jeedaan Somali Innovation hadda inoo sameeyo account anaga ayaa lacag bixin doona insha Allah waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay wax barato ay ka faa'iideysato maanta website-kan ayaa sameeyay Udemy inaad iska diiwaan geliso isdiiwaangeliskana ay easy tahay courses-kan aad qaadanayso marka hadda waxaan rabaa intaan ka bixin in koorsada sida loo qaadanayo kala hadda real estate investment iyo kala hadirtaan waxaan rabaa inaan tusiyo qaybta free-ga course-ga sida loo qaadanayo sorry intaan dhameynin and go back to the free-gan ku laabanayna hadda because of tusaalo kale waxaan dhahnay free aan rabnaa inaan qaadano hadda lacag u baahan tahay fadlan nala soo xiriir anaga ayaa ku iibinayna tan oo kale hadii qancisay waa ku dhufanaya koorsada kadib muuqaal yar oo intro ayaa ii soo baxayo oo ka hadlayo qofkaas oo dhahayo qofka uu yahay Hi, this is Peter Harris, author of this book Commercial Real Estate Investing for Dummies. waan aragnay muuqaalkii waan daawanay kadib enroll ayaa leedahay waa sidaad u jeedid koorsada ayay wax yar ku weydiinayaan bilaash ma isku daalisid then you good to go hadda wuxuu ku siinaa free copy commercial real estate waa PDF waa soo download gareysan kartaa waad u jeedaan waa soo degsada hadda waqti xaadirkani PDF kana u jeedaan halkaas ayaa ka akhrisanaysaa clear waa 92 bag waa wax aad ku akhrin kartid
laba maalin sida aniga aan aaminsanahay sidoo kale waxaa fiirin kartaa qofka baraayo saacadda inta lecture ay tahay then next ayaa leedahay halkaas ayaa kala soconaysa muuqaalkani waa soo dhameynay tig ayaa inoo saaran soo marka hadhow intaanu koorso markaa dhameyno dhammaantood tig ayaa noo soo saarayo hadhowna markaan koorsada dhameyno waxay noo soo qorayaan hambalyo koorsadii waa dhameysay then waxaa tahay diyaar wixii aad baratay inaad ficilkeeda samaysid marka waa free waa ijeedaa koorsadaan haddeertan waa bilaabay sectionkaani waa ujeedaa inta section ay tahay section 2 section 3 ilaa sectionka 11aad oo ah conclusion meesha hoos u dameyso soo markay please laga faa'iideysto dunida hadda way hormartay aad waxaana waxa baran kartaa adoo baadiyo joogo kalkacay adoo joogo yaa laga xanaaqan kalkacay baadiima magaalo weyn waay laakiin tuulo adoo joogo ayaa baran kartaa as long aad haysatay internet iyo telephone ama baalkii laptop waa mahadsantihiin dhammaantiin meel baa joogtaan